waxay inta laga bilmo intii soo gaaray riboodka in la idinka joojiyay duulimaadkii la xiriirtay wasaaradda amniga Soomaaliya wasaaradda waa raadinay waa wacay saaxiibkii Axmed Macallin waa wacay waa iga qaban waayay waa cod baan u duubay waa iga qaban waa raadsi waxaan rabaa inaan iraahdo sababta keeni karta waxa wararku igu soo gaarayaan in la yiraahdo waxa jirta xarig jar meeshan xarig jar maanta kama jirin dad rakaaba ka dhoofayay dad rakaaba oo reer Galdoobna waa ka soo degayay maana filayn maanta halkaan dadka reer Galdoog oo muddo sugayay inay aeroboor yeeshaan markay yeesheen ka bacdi dadkii rakaabka ahaa ee xamar laga diyaariyay ee Galdoog diyaar ku ahaa in la hor istaago runtii maana filayn cidda samaysay ee sidaa yeeshayna waxaan rabaa inaan u nisbeeyo wasaaradda agaasimaha waaxda aviationka maxaa yeelay asaga amarkaas bixiyay waa ninkii halka ka khudbaynayay saaxiibkay Axmed Macallin ee lahaa airport shaqo ka socoto diyaarad kama dajino waa ku mahadsanyahay maalinta aynu saalaha oo halkan dadka ka soo degay asagii wasiirka hore gaadiidka duulista hawada Duraan iyo agaasimayaashii la socday inay ayadoo sidaan ka liidata inta noogu yimaadeen diyaarad ka soo dajiyeen oo waliba fasaxeen wuu ku mahadsanaa laakiin kama aanan filayn maanta shaqadii aan shaqo ka badan qabanay oo ay ka wanaagsan tahay shacbiyadii iyo dadkii halkan uu kula hadlayo ku dhiirigelinayay inuu yiraahdo oo tigidada goosteen kama day kartaan Galdoog diyaaradii lama kansalin oo cilad kuma imaan farsamo kale kuma imaan kaliya waxa uu loo diiday Galdoog inay ka soo degto taasina waxay muujinaysaa yacni caqabadihii aan ka soo gudubnay oo Galdoog aeroboorkeeda muddo dheer la hortaagnaa qayb ka mid ay muujinaysaa in wasaaradii u bareerto oo agaasimihii u bareero oo uu yiraahdo Galdoog lama aadi karo oo diyaaraddu saa ku yiraahdo runtii waa nasiib darro weyn waxaan rabaa dadka reer halkan dadkii aan tigidada u jarnay ee waqtigu ka soo dhumay ee waayeelada xanuunsan ku jireen ee ciridda taagnaa ee maanta rabay inay halkan ka duulaan oo gurigoodii ka duulaan in yacni sidaas loo niyad jabiyo oo wasaaradoodii iyo agaasimahoodii iyo cid kastoo saameyn ku leh ay doorkaas qaadatay nasiib darrada aad baan uga xunnahay waxaan rabaa inaan dadka deegaanka u sheego caqabadihii ugu adkaa waa laga soo gudbay alxamdulillaah Galdoog aeroboorkeedu waa diyaar sidoo kale waxaan rabaa inaan xuso rakaab badan oo ka badan dhowr iyo 20 qof ayaa xamar tigidda ka goostay Galdoog soo socday waxay rabeen inay farxad dadkooda la qaybsadaan waxay rabeen inay Galdoog ka soo degaan maanta waxa loo wareejiyay rakaab gaalkacay loo wareejiyay gaalkacay kama xumin waa magaaladayadii wixii ka soo dego horumar waa rabnaa laakiin garoomada iyo deegaamada iyo dadka maskaxdooda iyo dawladdu sida u shaqaynayso inay kala cad yihiin baa fiican annaga haddaan halkan ka shaqaynaynay waxa wasaaraddu qaadatay runtii waxaan rabaa dadka deegaanka reer Galdoog awooddaas maanta cidda isticmaashay inay tahay wasaaradda runtii waa nasiib darro weyn wax aad iyo aad looga xumaado weey awal waxaa laga yaabay in meel kale la dhaliilayay laakiin waxaan rabaa dadka inaan ugu bishaareeyo airportka inuu diyaar idin yahay awoodda in meesha laga shaqaysiiyana dadka reer Galdoog ay leeyihiin waa sida la ogyahay airportkanu meel wuxuu ku yaalaa aad iyo aad munaasib u ah dawlad deegaanka iyo Soomaalida xuduudka Galdoog meel bay ku taalaa aad iyo aad u fiican waxaad ka garan kartaa dadku sida ay u xiisaynayaan maanta dad ilaa 16 qof gaaraya oo aan shalay kaliya siinay riboodka inay diyaaradda imaanayso ayaa ka duulay marka waxaan rabaa inaan idin raahdo qorraxdii aad taagnaydeen iyo ciridii aad taagnaydeen raalli ka ahaada annagu waxaan ka shaqaynaynaa waxay ahayd inaan dadka shacabka u adeegno aeroboorkan u adeego intii yacni ka qayb qaadatay doorkaas qaadatayna waa mahadsantahay aeroboorkan wasaarad ma dhisin dawlad goboleed ma dhisin dawlad dhexe ma dhisin isku tashi shacab baa lagu dhisay in waqtiga kooban isku tashi shacab aeroboor lagu dhiso lagu hirgeliyo waxa ahayd in la dhiirigeliyo in caqabada iyo jaranjarooyin loo dhigto runtii waxa aad iyo aad looga naxaway saaxiibka Axmed Macallin waxaan leeyahay hadda reer Galdoog shalayna meel baa ugu qoray maantana meel baa ugu qoranta inaad wasaaradii awoodeeda adoo isticmaalaya diyaaradii Galdoog ka duuli lahayd aad hakisay adiga iskala doorkaas adaa u bareeray in diyaaraddaas ay imaan weyso reer Galdoogna waxaan leeyahay airportkiini waa shaqayn doonaa insha Allah haddii alla idmo maantay berrina maantay maaha annaga waxayna tusaysaa haddaanu nahay howlwadeenada airport iyo reer Galdoogba
inaan yani ii sheeg uga midowno arrintan sidii aan uga hortegi lahayn cid kasta oo door ku leh in la carqaladeeyo horumarkana waxaan rabnaa in meel looga soo wada jeesto aad iyo aad baan waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo warbaahinta iyo dhammaan dadka ciridda taagnaa ee u yimid inay farxadda la qaybsadaan dadka shacabka waxaan aad u dareemayaa halkaas dad waayeelaayo xanuunsan oo maantay rabay bil iyo bar sugaaya qaarkood ayagoo leh war waxaan ka baaqsanaynaa rafka waan ka baaqsanaynaa isbitaalla u socday maanta in la qalbi jabiyo oo wasaaraddoodii weliba federaalku qalbi jabiso waa nasiib darro aad u weyn weeye dadku ayaga aragtidooda dhiiban doona laakiin waxaan sheegaynaa falaytkii ayadoon wax ciladii ku imaan oo wax mushkiladii ku imaan oo gaalkacyo oo magaaladii 70 kilomitir loo jirta ay ka dagayso in loo diiday Galdogob oo wasaaraddu u diiday intaasaan rabnaa inaan dadka u sheegno annagu intii aan qaban karnay waa qabanay waana qabanaynaa waana sheegaynaa shacabka codkiisana waa ku hadlaynaa waxaan rabnaa in inta la ogaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin annagu maanta guryahayaga waxaan uga soo kacnay garoonkayaga caalamiga inaan ka duulno laakiin jilaafaa jidha waana la jilaafeeyey jilaafadana insha Allah waa ka guulaysanayna waana ka hortagayna weligay haddaan reer Galdogoobna jilaafana la ku wada laakiin jilaafada waan ka hortagayna waana ka guulaysanayna diyaaraduna waa imaan garoonkana way ku soo degin wax walba isku tashi baan ku dhisan jirnay waana isku tashanayna garoomada Soomaaliyeed ka mid yahay cid hor istaagaysana male waxa maanta nala gaarsiiyay ama meeshaan nagu qabsadana waa wax aan sii soconayn laakiin waa nala ku talagalay laakiin sii soconayna soo ka hortagayna maanta ka bacdi nagu dhici mayso gacmaha isqabsanayna isku tashanayna reer Galdogob isku tashi baa lagu yaqaanaa waxaan tusaynaa qolada khilaafada noo dhigaysa garoonkeena diyaaradda saa isu daba marayaan inay arkaan insha Allah waxaana waa u jeednaa xaaladda laakiin ilaahay baa naga baramoosinahay waqti badan airboorkii la geliyay oo juhdi badan lagu bixiyay inaan dhalaxadiisi maanta dhaxalkii helno oo aanu diyaaradu ka soo degtay degmada oo dadkii xanuunsanaa iyo dadana ka lahaayeen safar kale sii mari lahaa xamarba ay buul lahaayeen laakiin may suurtagelin sida agaasimuhu noo sheegay waxa saaradda duulistii hawada qorshe ka socdo inbay suurtagal weyday duulistii hawada gabar reer Galdogob ah ku jirta wasiiradda ugu sareysa ka anigu maadaama aan gabdhaha reer Galdogob ka mid ahay gabdhaha baan u dirayaa Firdawso Cismaan Firdawso waxaanu niraahnaa gabdhuhu door ha ku yeesheen siyaasadda waxaanu niraahnaa annagu haddaan reer hebelnahay gabdhaha ayaga looma oga wiilasha kaliya raggu sibood garaya gabdhaha waqti lama geliyo maanta adigoo wasiirad ah in Galdogob in diyaaradu soo degto loo diiday ujeedkaas rabtaan kala haada cid rabtaanna ku qancaya laakiin ma suurtagal ahaan karto maanta haday soo degin insha Allah bray soo degaysaa qof walbana wuxuu dhigtaa dhamaya hadii Ilaahay idmo magaaladan iyo dadkan dad badan oo masuuliyiin ayaa hore waxay rabaan awoodooda ugu soo isticmaalay laakiin mar dambe ka ogolaan mayno waqti bay halkaan la geliyay dhibaato badan baa ka dhacday dad baa sharciyadoodii waqtiyadoodii uga dhamaadeen ka yeeli mayno qof walba maalinta anigan ay arkay inuu yiraahdo maanta Firdawso sida ugu dhaqsiyaha badan inaad raali gelin uga bixisid way diyaaradda ka baaqatay degmada Galdogob oo la soo hadishin mas'uuliyadan darrada ka dhacday iyo rakaabka iyo dadka xanuunsan ee dib u noqonaya mas'uuliyadiisa adigu aad qaadatid oo ay sababtu tahay wasiiradii adaa ah adu airboorku hadda Galdogob ku xanimay annagu cid kale aan eedaynayno iyo cid kale aan dhahayno qofkaas joojiyay mina ma jiro wasiiradda joojiyay